wada ku soo dhawaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne qodobada warya wacalan idinka hayno careed waxa ugu dooroon diigaanyada Shiinaha oo deyn u qaadanaysa gagi diyaaradeed oo ku taala qaaradda Afrika, Urdun oo biyo u doonatay Israa'iil kadib markay haraaday, Mustafa Cagjar oo nafta u soo fooleeriyay Soomaaliland isagoo gacan ku gabada, buur madow oo dhexdhexaadinaya TPLF iyo ra'iisul wasaare Abiy, Buuhoodle oo ka soo doogaysa wixii ay badeen calaqabihii xilalka degmada uga horreeyay, Siciidani iyo ilmo Diyaano oo la isaga carra qaaday, iyo nin ay Hargeysa ku jeeday oo loo xidhay magtiisa oo lagu sheegay $10,000. wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena. wararka ka imanaya bariga dhexe ayaa sheegaya in Urdun iyo Tel Aviv ay dawaadda ku kala duugteen heshiis laxoos oo ku saabsan dhanka biyaha iyo ilayska. waxaa la sheegay inay yuhuuddu u mucuurtaysan tahay waxoogay ilays ah oo nooca ceedda laga dhaliyaa, halka ay xukuumadda dalka Urdun iyaduna u jeel qabto una haraadan tahay in biyo ah oo ay dhuunta ku qoyso kuwaasoo lagu sifeeyo dalka Israa'iil oo biyaha baddooda dhanaan ka saara milixda. waxaa la sheegayaa in dalka Urdun ay qalaleen dhammaanba dhowr webi oo yaryar oo dhex mara, waxaana soo food saartay baa la yidhi haraad iyo oon jidiinka engejiyey. taasi ayaa la sheegay inay Urdun biyo u doonato oo dhanka taasi ayaa la sheegay inay soo waldaamisay inay Urdun biyo u doonato oo dhaanka u rarato sidan iyo yuhuudda, tiyo ay xukuumadda Tel Aviv iyaduna u soo jeedisay Urdun inay dhulka lama degaanka ah ee dalkeeda ay ka dhaliso tamarta cadceedda ilayska oo ay aad ugu baahan tahay. ugu dambayn daawade waxaa la sheegay in shirka lagu kala saxeexday heshiiskan uu ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta, oo isagu isku soo manaqataynaya in dhawaalaba reeraha Carbeed iyo yuhuudda. iyaguna wararka ka imanaya dalka Uganda ee uu 40 gu'u ka hormadow yahay Yoweri Kaguta Museveni ayaa sheegaya in meesha deyn loo haysto dalka guud ahaantii. waxaa la sheegay in xagida bannaan ee diyaaraduhu buubaan oo uu dhismaheeda malaqbooriyey Shiinuhu, misana uu dalbaday in laga siiyo caanteynadii iyo gabbooyinkii ka galay. gegida diyaaraduhu takara dhabtaan ee Entebbe oo ku yaala magaala madaxa dalka Uganda ee Kampala ayaa la saadaalinayaa in loo daba ka dhiibo xukuumadda Beijing. Yoweri Museveni ayaa waxoogay deyn ah oo dhammayd $207 malyan ka hardafay baanka Shiinaha gugii 2015. dowladda Xi Jinping ayaa laga soo tigsiin waayay inay mar kale dib ugala xaajo qaadato dalka Uganda qodobadii la isla meel dhigay ee heshiiska, kuwaasoo dhigaya in Beijing ay mahoobido garoonka diyaaradaha ee Kampala haddii dowladda dalkaasi ay wax ka soo naasacadaan waayaan amaba ay iska bixin weydo deynta ku raagtay. waxaa la sheegayaa in dhawaalaba in diigaanyada indhaha shuqubaha leh ee Shiinuhu ay qaaradda guduudan ee Afrika ku soo daldalayeen deymo iyo qardo xad-dhaaf ah oo ay ugu daadinayso manka dhilowyahanka, taasoo ah dabin qarsoon oo ay adag tahay siday uga soo baxdo cid kasta oo dala ku tidhaahda. umuurtaasi waxay hog madow oo god curdama ku ridaysaa yididilada qaaraddan dihin ay kaga soo kabanayso hurgumooyinka reer Bogo xilli ay mar kale dalal badan oo ku yaala qaaraddu ay la kulmayaan bele horle oo kaga soo hoobanaysa Danbury oo lugaha dhiiqa u gelisay. iyaduna jahwareer iyo tii u sasaane guluf colaadeed ayaa ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland. warku wuxuu sheegayaa inay arrintu ku qotanto kana bilaabantay kolkii xilka laga qaaday taliyihii ciidanka shahaadala dirirka reer Puntland u yaqaanaan ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaano, oo xilkaasi ka dumaalay walaalkiis Asad Cismaan Diyaano ayaa ku xil furay inuu aqbalo xilka xayuubin uu ku sameeyay madaxweyne Siciid Dani. wuxuuna Diyaano sheegay in xilkan yahay mid xayiigtooda ay lahaayeen abilaaka awow oo aabbahood ay uga dhintay, sidoo kalena ay xaladuugeen oo dhaxreen isla jeerkaasna tacab badani kaga jiro. ciidanka shahaadala dirirka Puntland ee BSF ayaa la sheegay inay soo dacal baneeyeen dhammaanba dhufaysyadii ay kaga jireen buuraha Galgala, Calmadow iyo Calmiskeed, oo ay gaar dable kaga hayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo la sheego inay aagga ku hor joogeen si aanay uga adeegan Boosaaso iyo Garowe. wasiirka nabadgelyada uga wakiilka maamul goboleedka Puntland Cabdisamad Gallan ayaa sheegay inaan si nabad dheg loogu jalaqsiin doonin diidmada ina Diyaano ee ku saabsan xilka laga hudiyey, maadaama uu sheegay inaanay Puntland ahayn xeragaal ee dowladda ka jirto. wuxuu sheegay inaan laga aqbalayn haddii la isu yimaado oo ina Diyaano ogol mooye aan arrin kale looga fadhiyin.
isimada malaaqyada garaadada iyo boqorada dhaqanka Puntland ayaa labada dhan ka duraamanaya inay xaalka dejiyaan si aan gacan la isla tegin. si kastoo ahaataba xilka qaadista Dani ee xilligan uu ku sameeyay Diyaano ayaa la xaqiijiyay inay daba socoto kadib markii labada nin ee hadda isu muuqda isxiniya taabanayana ay kala hogaamiyeen laba urur siyaasadeed oo ka dhisan Puntland. gaaska ciidamada BSF ama shahadada dirirka loo yaqaano ayaa la sheegay inay maalgeliso dowladda Mareykan oo aan iyadu ilaa hadda ka dibin jaaqin buuqa bari ka taagan. ayaguna xogada cagaysiya oo si dalagan ku soo galay kalshinta warqabadka iyo kala miirista wararka ee TRTV ayaa sheegaya in boqor Cismaan Buurmadow uu isu xullibi doono sidan iyo dalka bilaayadu ka durfaan dhabayso Itoobiya. warku wuxuu intaa ku darayaa in boqorku uu doonayo sidii uu dhexgeli lahaa labada col ee isdul cawsanaya ee Tigreega iyo dowladda dhexe ee uu burka u tuurayo Abiy Ahmed. boqor Cismaan Buurmadow ayaa la sheegaa inay aad isugu dhawaayeen xisbigii EPRDF iyo xukuumaddii ra'iisul wasaare Meles Zenawi iyo weliba maamuladii qoomiyadii Tigray ee soddonka ka tarbanyeysay guud ahaan Geeska Afrika. boqorka oo iminka ku sugan magaalada saaran badweynta Hindiya ee Muqdisho ayaa la biirixiyay inuu qorshahan la duduucayo madaxweynaha milaygiisu dhammaaday ee Farmaajo kaasoo ay xiriir wada leeyihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya. xogtu waxay bitisay inuu Buurmadow codfogeeyaha kula hadlay gaarayacunta Tigray isagoo ka durraantay inay u qabsoomaan oo yeelaan dhexdhexaadinta uu ka dhex wado dowladda iyo iyaga. buurta ayaa la sheegay in TPLF ay ka ogolaatay inuu dhexdooda ordo oo marada tuuro wuxuuna dhinaca kale ka dalbaday inuu soo ladqabeeyo madaxweyne Farmaajo. waxaa la ogyahay in dhammaanba reer galbeedku ay maara iyo daaqad u waayeen waan ay ka dhex wadeen qolyaha isku ragmaday Itoobiya ee midba kanka kale biyey gurigiisa iyo garaacdiisaba. xogayaha arrimaha dibadda xukuumadda Ine Bayden oo ay labada dhanba dhegta ka huwadeen ayaa marba meel isu dhigaya sida odaygeelii Bay. wuxuu telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha bidoodka washaysiga iyo gafuur culusta Kenya kaasoo uu istusay inuu wax ka qaban karo dhiilada colaadeed ee dalka deriska ay yihiin Itoobiya. Anthony Blinken wuxuu sheegay Uhuru Kenyatta inuu Addis Ababa ka wado guuldarre iyo gacmo madow isla jeerkaasna walaac xooggan ka muujinayo xariiqaha ama astaamaha welwelka iyo walbahaarka ee sheegaya korarka ciidamada militari ee ra'iisul wasaare Abiy. intaa wuxuu ku biiriyay wakiilka Mareykanku in colaad la baqtiyo iska daayo uu dabku ku fidayo dhammaan gobolada Geeska Afrika taasoo lagama maarmaan ah buu yidhi kana dhigaysa in labada dhinac loo doono ciddii afgaranaysa. Mareykanka iyo Kenya ayaa isla qaatay inay taageerayaan wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay in lagu soo afmeero bilada iyo baaska ka qiiqaabaysa degalada dalka Itoobiya. docda kale isaguna wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlid Oglo ayaa isaguna codfogeeyaha kula hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi Madamqade Makanon kaasoo uu dhegta u saaray isagoo xanshaashaqaya inay xukuumadda Erdogan hubiya saana taaro doonto dowladda dalkiisa. ugu dambeyntii daawada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa gadiidkii maanta isagoo dheemaar ah isa soo galuubay xadbeenaadka magaalada ganacsiga iyo farataagtaaga caanka ku ah ee Wajaale. waxaa lagu soo dhaweeyay duleedka Wajaale iyada oo goor dambana loo soo kaxeeyay dhankan iyo magaalada caasimadda u ah Jamhuuriyadda Somaliland. Cagjar oo dhowaan isku caanashubay isla jeerkaasna aad uu wax loo wada oramka talada u dhiibtay ayaa la sheegay inuu howlo badan ka soo doocinayo ceelkan Hargeysa. wararka dhukusaada oo TRTV helayo ayaa sheegaya inuu Cagjar maagan yahay inuu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ka durraanto inuu ka mid noqdo ururkii iskaashiga Geeska Qaaradda Afrika ee kolkii hore saddex geesoodka ahaa kaasoo xubnihiisa ay ka mid ahaayeen Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea. ururkaasi ayaa ahaa in hal dowlad Geeska Afrika laga qotomiyo balse waxaa la sheegay inuu karaar jabay kadib kolkii duufaan dagaal ay ka ugaantay gudaha dalka Itoobiya maadaama dadka wax saadaaliyana ku sheegeen in heshiiska dowladda geesku uu ahaa dhagar qarsoon oo loo maleegaya duulka Soomaali la yiri kuwaasoo u badan iminka mahayamoog balse waxaa la sheegay in Eebe uu kala dhantaalay suntii ay u qooshayeen Itoobiya iyo Eritrea. xogtu waxay sheegaysaa inuu Abiy Ahmed xilligan la joogo uu aad u danaynayo ama uu u jeel qababa inuu ururkaasi sii xoojiyo si uu Itaalbaaska u helo garab taarta hub iyo codod uu ku sii xajiyo wambarka uu ka liiqliiqanayo. wararka kale ee uu sidoo urku baaluhu ayaa iyaguna bitiyay sidan si ka gadisan waxayna dhayda ka cadeeyeen inuu Cagjar Hargeysa ugu soo doolay si uu madaxweyne Biixi uga codsado inuu u ogolaado in haabada Berbera laga soo dejiyo lagana soo duduuco bir iyo baaruud ay Itoobiya ugu deeqeen duulka reer bari iyo dowladda Islaamiga ah ee kacaanka Iiraan.
waxaan iyaduna meesha ka maqnayn baa la yidhi waa iyaga yaallahooda inuu cagjar ka codsanayo dowladda Somalilan siday berberi isugu diyaarin lahayd inay noqoto marsada waraabin doonta ama qulaamin doonta guud ahaan dalka Itoobiya maadaama dhabbihii Jabuuti ka iman jiray ee habi jiray Addis Ababa ay TPLF dhexda u fadhiisatay iyadoo soo kubaynaysa sidoo kalena doonaysa inay kala goyso. waxaa la sheegayaa inuu cagjar booqan doono dekedda magaalo xeebeedka Berbera iyo weliba inuu la kulmi doono dad badan oo daneeya arrimaha geeska balse war jiraaba cakaaru iman waxaanan idinku faahfaahin doonaa wararkeena dambe. intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.